Dit is les 31, voegwoorden. Want, omdat, en alles. Waad salaamantihiin marweyn iyo mudanayaalba kuna soo dhowaada barnaamijka halmaal ee barashada afka Nederlandska. Casharku waa casharkii 31 ayuu inoo socdaa. Want, omdat, alles iyo intaan ku dari karaba caawa waan isku dayi doonaa haddii ee baydmo. Voegwoorden waa xidhiidhiye, waa erey isku laraya, isku xidhaya laba weedhood ama laba jumladood. Twee zinnen. Waa erey tilmaamaya ama u yaala de reden, sababta waxay arrintani u dhacday, maxaa keenay isbeddelka, isbeddel baa yimi. Waarom, waayo, maxaa yeelay. Want, omdat en alles geven de reden aan. Je kunt er zinnen mee verbinden of samenvoegen. Vieren gaara ereyga omdat marka aad adeegsanayso inta badan waxaa la dhigaa labada weedhood ayuu mid tegayaa ficilku gadaal ee u fiirsada. Ik ga naar de huisarts omdat ik spierpijn heb. Omdat ik spierpijn heb. Waxaan u tegayaa dhakhtarkayga gaarka ah omdat ik spierpijn heb. Muruqyada ayaa ay xanuunaya, sababtoo ah muruqyada ay xanuunaya. Omdat markaad adeegsato markaa ficilka dhanka dambe ayuu marayaa ee u fiirso. Hawdayma la'aan markaa omdat in aanay la mid ahayn kuwa kale. Tusaale markaa, als ik kiespijn heb, ga ik naar de tandarts. Haddii goos i xanuunayo, dhakhtarka ilkaha ayaan aadayaa. Waa alles. Als ik kiespijn heb, ga ik naar de tandarts. Wanneer ga je een nieuw boek kopen? Goorma ayaad boek soo gadanaysaa? Waxaad ku jawaabi kartaa markaa, als ik geld heb, ga ik een nieuw boek kopen. Als ik geld heb, ga ik een nieuw boek kopen. Marka aan lacag helo, ayaan boek soo gadanaya. Ik ga je helpen als ik tijd heb. Ik ga je helpen als ik tijd heb. Waxaan ku caawin doonaa markaan waqti ku helo. Waxaan ku caawin doonaa marka aan waqti ku helo. Ik ga naast je zitten als je niet erg vindt. Ik ga naast je zitten als je niet erg vindt. Alles ashna waa la yar yidhahdaa marka dambe oo la'da waa la yar cunaa. Markaa kolba sidaad ugu dhawaaqdo adigay kuu taallaa laakiin waa in lagu fahmoon. Ik ga naast je zitten als je niet erg vindt. Waan ku ag fadhiisan doonaa haddii aanad dhib u arkayn. Dadka badankooga ayaa lagu yidhahdaa markaad ag fadhiisanayso ayaa la yidhahdaa ik wil hier zitten ama ik ga naast je zitten als je niet erg vindt. Marka qofkii natuurlijk soo fadhiiso ayuu ku odhanayaa. Ik hou van je als je lacht. Wanneer goorma ayaad jeceshay qofka marka aad qosasho ayaa tiri. Ik hou van je als je lacht. Ik kan later langskomen als je wil. Hadhow ayaan ku imaanayaa ama ku soo marayaa haddii aad rabto wey. Waa goorma? Waa haddii aad rabto. Als je wil. Ik kan later langskomen als je wil. We gaan nu eten als je wil. Imika ayaan cuntaynaynaa haddii aad rabto ama haddii aad doontaba. Ereyga omdat iyo want waa isku macne. Way isku macno dhow yihiin. Waxaad adeegsan kartaa sababta, sidaan horeyba usoo sheegay, sababta keentay, maxaa yeelay, waayo, waa isbeddelkii maxaa keenay weeye. Tusaale, het is koud bij mij, omdat de centraalverwarming kapot is. Centraalverwarming iyo kaakhal guriga ayuu kulayliyaa. Marka waxaad leedahay het is koud, waa qabow, bij mij, gurigayga. Omdat de cv ama centraalverwarming kapot is. Waa uu hallaabay ama uu jabay. We hebben geen les omdat de docent ziek is. Cashar ama dersi melihin maanta maxaa yeelay de docent ziek is. Macallinkii wuu xanuunsanayaa. Zij is ziek. Way xanuunsanaysaa. Omdat zij niets eet. Waxba ma cuntaba dee. Ik werd kwaad. Waan cadhooday. Omdat je niet goed luistert. Markii aad si fiican ii maqli weyday ama si fiican markaad ii dhagaysan weyday waan cadhooday. Ik werd
kwaad omdat jij niet luistert. Ik heb een bril nodig. Haye, okiyaalo ama muraayad indhahaan u baahanahay. Omdat mijn ogen slechter zijn geworden. Indhahaygii dib u dhac ayaa ku yimi. Ik ga een auto kopen. Gaari ayaan soo iibsanayaa. Want sababtuna ik heb wat geld gespaard. Maxaa yeelay lacag kayda ayaan haystaa ama dhigtay. Sparen waa kayd aad dhigatay weeye. Ik ga een auto kopen, want ik heb wat geld bespaard. Ik bel de tandarts. Haye, dhakhtarka ilkaha ayaad wacday, want sababtuna ik heb kiespijn. Maxaa yeelay? Haye, waayo goos bay xanuunaya. Ik blijf thuis. Gurigaan joogaa. Want ik ben ziek. Waan xanuunsanayaa. sababtuna waan xanuunsanayaa weeye. Qofkii sababtii baad usii sheegaysaa. Su-aashii waarom lagu weydiin lahaa baad kasii hordegaysaa. Hij helpt, waa u caawinayaa, omdat ik hem dat vroeg. Waa u caawinayaa waayo aniga ayaa weydiistay. Ik ben hier, waxaan halkan u imi, omdat ik van je hou. Ik ben hier, omdat ik van je hou. Waxaan halkan u imi, waarom? Adiga ayaan ku jecelahay. Rustig aan, Hanad, want ik heb een beetje hoofdpijn. Rustig, Hanadow, is ditje. Madaxa ayaa aniga xanuunaya. Ik moet even eten. Ik moet even eten, want ik heb honger. Waa inaan wax yar cunaa. Waayo, gaaja ay haysaa. Ik moet even eten, want ik heb honger. Ik kom niet morgen, want mijn dochter Ebla is ziek. Ik kom niet morgen, want mijn dochter Ebla is ziek. Inantayda Ebli way xanuunsanaysaa. Berri ma imaanayo. Inantayda Ebla ayaa xanuunsan. Ik ga niet terug, want ik heb daar niets te zoeken. Ik ga niet terug, want ik heb daar niets te zoeken. Haddii meel ku noqon lagu yidhaa, waxaad odhan kartaa ama waxaad leedahay, ik ga niet terug, anigu ku noqon maayo, want ik heb daar niets te zoeken. Halkaa wax ii yaalla male ama waxaan ugu noqdo male. Ik blijf vandaag thuis, want ik ben ziek. Ik blijf vandaag thuis, want ik ben ziek. Maanta guriga ayaan joogaa. Maxaa yeelay? Waan xanuunsanayaa. Ik ben ziek. Waxaa inoo raaca ereyadan oo dhammaantood wada ah voegwoorden ama xidhiiriyayaal. Ereyo kale oo aan soo qaadan doono. Kulley maan diyaarin, laakiin waxaan isku dayi doonaa bal iyagana inaan weedho geliyo. Sidoo kale laba weedhood ayay iyaguna isku xidhaan ama laba jumladood sidaad u taqaanaba. Twee zinnen ayay isku darayaan oo isku xidhiirinayaan. Dus, maar iyo namelijk. Tusaale haddaan dus oo kale soo qaato, waxa ay tilmaamaysaa ama dus markaad tiraahdo waa sidaa darteed, sidaa awgeed. Namelijk waa aan idhaahdo ama run ahaantii qofkii baad u sii macnaynaysaa sababta iyo sida ay wax yihiin. Maar iyadana haddaad tiraahdo waa balse ama laakiin. Bal aan isku daya markaa inaan weedho geliyo. Hij werkt hard, maar hij verdient weinig oo kale haddaan idhaahdo. Hij werkt hard, maar hij verdient weinig. Waa u shaqeeyaa, hase yeeshee, ama laakiin lacag badan lama siiyo. Hij werkt hard, maar hij verdient weinig baad odhan kartaa. Het is niet duur, qaali maaha, maar goedkoop. Maarna saasaad u isticmaali kartaa. Het is niet duur, maar goedkoop. Qaali maaha, laakiin ama hase yeeshee waa raqiis. Ik werk niet langzaam, maar heel snel. Shaqooyinkoo kale waxaad odhan kartaa ik werk niet langzaam, maar heel snel. Qunyar ama tartiib anigu uma shaqeeyo. Qunyar uma shaqeeyo. Langzaam waa qunyar ama tartiib uma shaqeeyo, laakiin dhaqso si degdega ayaan markaa u shaqeeya ama qof degdegaan ahay. Ik woon niet ver, maar dichterbij. Waa tusaale kale. Ik woon niet ver, meel fog ma degani, hase yeeshee meel dhow. Ik woon niet ver, maar dichtbij,
meel dhow ayaan deganahay. Tusaale kale, een ander voorbeeld. De les is niet moeilijk. Deze les is niet moeilijk, maar heel makkelijk. Dersigan ama casharkani ma adka, laakiin wuu fudud yahay. Maar hadday timaadaba waxa weeye, hase yeeshee laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa maar waa wax akisa. Laba arrimood oo iska soo horjeeda, laba ficil oo iska soo horjeeda. Namelijk haddaan u gudbo, waa dhab ahaantii, run ahaantii, sababtii ayaad sheegaysaa. Dadka luqadda aadka u yaqaana inta badan ayaa adeegsada. Markaa waxaan filayaa dadka bilowga iyaga aad uma adeegsan doonaan, laakiin waad dee iska baranaysaa. Ik ben vandaag thuis, tusaale. Ik ben vandaag thuis. Ik ben namelijk ziek. Kuwii horon bay la mid tahay, laakiin namelijk markaad maqasho waa inaad macnaheega yara taqaano. Ik ben vandaag thuis. Ik ben namelijk ziek. Gurigaan joogaa, run ahaantii waan bukaa. Sababtii unbaad sheegaysaa sidoo kale. Ik kan je helpen. Waan ku caawin karaa. Ik kan je helpen. Ik was namelijk 10 jaar docent Engels. Ik kan je helpen. Ik was namelijk 10 jaar docent Engels. Waan ku caawin karaa. Macallin waxaan ahaa 10 sano Engels dhigayay. Ali is er niet vandaag. Hij is namelijk vrij. Ali is er niet vandaag. Hij is namelijk vrij. Meel ayaad wacday, waxaa lagu odhan karaa cali maanta ma joogo. Adigoo cali raba ayaa lagu odhan karaa markaa ma joogo run ahaantii. Cali ma joogo dhab ahaantii. Waa fasax maanta. Ali is er niet vandaag. Hij is namelijk vrij. Mijn dochter heeft slecht geslapen. Dus ik ben erg moe. Inantaydu xalay ma ay seexan. Haye sidaa awgeed, dus markaad tiraahdo waa sidaa awgeed ama sidaa darteed, ik ben erg moe, waan daalanahay, aad baan u daalanahay. Mijn dochter heeft slecht geslapen, dus ik ben erg moe. Zij was niet echt gastvrij, dus ik ben al weg. Qof martida soo dhaweysa ma ay ahayn, sidaa awgeed waan ka baxay gurigeygii. Zij was niet echt gastvrij. Dus ik ben al weg. Gastvrijheid waa qofka dadka soo dhaweeya ee martida soora. Je hield je niet aan de afspraak. Dus ik ben weg. Je hield je niet aan de afspraak. Dus ik ben weg. Je hield je niet aan de afspraak. Ballantii ayaad ka baxday. Haye, dus ik ben weg. Sidaa awgeed, ik miste jullie. Dus ik ben terug. Waan idin hiloobay, dad aad in badan kala maqnaydeen ood ka tagtay oo aad u soo hilowdood soo jeclaatay, sidaa awgeed ayaad u soo noqotay. Ik mis jullie. Aad ayaan idinku hiloobay, dus ik ben terug. Sidaa awgeed ayaan u soo noqday. Waxaan filayaa in aan wax yar idin tusay, idin soo bandhigay ama idin bidhaamiyey caawa voegwoorden, xidhiiriyeyaasha. Gaar ahaan marka aad sheegayso fal dhacay ama wax isbeddelka keenay ama sababta markaa jirta meesha. Haddii cashar walba aad waxoogaa qabato oo aad dhegaysato ereyada 3 iyo 2 weerood aad qabato ood barato, adeegsato, waxaad arki doontaa waxaan adigoo yaqaanay oo waxaad moodaa qofka bini'aadmiga inay waxaan maskaxdiisa ku beernaayeen oo u baahnaa inuu maalinun bilaabo. Af waliba waa markaa ama luqad walood barataaba markaa waa okay. Bini aadamku afafka ayuu isku fahmaa. Waxaa loo baahan yahay in la barto inta aad awoodo kulley goobta aad degan tahay ee aad ku nooshahay afka lagaga hadlayo. Waxaan filayaa tixgelin iyo respect bay arrintaasi noqonaysaa. Waqtigaagan ayaanad ku dhaafin mala yacni ku dadaal cilmi maadiya iyo mid diiniyaba. wixii loo dadaalo midhahoodana mar unbaa la arkaa ama mar unbaad arki doontaa. casharka 11aad ee barashada afka Netherlandska ee hal maal caawa waa naga intaa. tan iyo arag maqalkeena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgeliyo. halka u dambaysa wixii fikradaha iyo oraha waan soo dhaweynaynaa. suulka kor u qaad oo like saar haddii casharka uu ka cajabiyo oo word iyo erey iyo lababa aad ka faa'iidaysato. For nu, tot volgende les. Nabadgelyo.